shaqaalaha farsamo yaqaanka ee dhisaya dekada cusub ee magaalada Berbera ayaa maanta waxay sameeyeen shaqo joojin kadib markii ay isfahanlaan soo kala dhex gashay iyaga iyo shirkadaha qaatay qandaraaska dhismaha dekada weyn ee magaalada Berbera. Maareeyaha dekadaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdilaahi iyo isuduwaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska ee gobolka Saaxil Ibrahim Caatiyo warbaahinta kula hadlay xafiiska wasaaradda shaqo-gelinta ee gobolka Saaxil ayaa waxay ka warameen shaqadani ay maanta joojiyeen shaqaalaha farsamo yaqaanka ee dhisayay dekada magaalada Berbera. saaka halkan waxaan ugu yimid shaqaalihii muruqmaalka ahaa ee dekada Berbera balaarinteeda ka shaqeynayay oo cabanaya cabashada ay noola yimaadeenna waxbaanu iskaga ogaanay oo aan ka wada hadalay. cabashadoodii way soo gaarsiiyeen xafiiska shaqaaluhu, annaguna waanu kala hadalay. waxna waanu isla meel dhignay inaanu cabashadooda horena ugu jirnay, iminkana aanu haddii laba kuri wax ka qabanayno oo aanu si degdega u gelayno haddii la ka dhigo. marka hadda ayaan u kacaynaa oo aanu haddii laba kuri la kulmaynaa shirkadaha muqaawilka ka shaqeynaya ee private sector-ka ah ee soo galay arrimaha shaqaalaha. runtii arrintani maaha arrin cusub, waa arrin markii ay soo baxday bilowgii arrimahan shirkadaha private-ka ah ay soo baxeen. wasaarad ahaan anagu go'aan baanu ka gaadhnay, meel baanu iska taagnay inaysan xeerku ogolayn, inaysan sharciga dalku ogolayn in shirkado yar oo private oo muqaawila oo ka shaqeeya arrimaha shaqaalaha oo wasaaradda iyo u dhaxeeya shirkadaha waaweyn ee shaqaalaha qaadanaya inaysan jirin oo sharciga ogolayn. anagu horaan wasaarad ahaan go'aan isaga taagnay, meel baanu iska taagnay, iminkana meeshii baanu ka taaganahay maadaaba shaqaalihii iyo wixii hawsha ay gacanta ku hayeen ay maaragtay cabashada intaa laga ka soo baxday oo shaqo joojin ay ka soo baxday oo 100 qof oo shaqaalaha oo cabanaya oo dekadii dhameyd ee socotay ay shaqadeedii istaagtay oo ay noo yimaadeen. iminkana go'aan baanu ka gaari doonaa insha Allah. runtii in badan baan la hadlaynaa shaqaalaha muruqmaalka ee ka shaqeeya dekada, waxaanan u sheegay wixii cabasho ay qabaan ka qabaan shirkadahan shaqo-geynta ay ka cabanayaan in iyadoo ay shaqadii wadaan guddi iska soo saaraan, dabeedna guddidaasi wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gaar ahaan wasiirka dhammaan la wada fadhiisto arrintaas si degdega loo xaliyo. hase yeeshee way ka dhaga adeegeen oo waxa ay sameeyeen inay shaqadii ka dareeraan. isuduwaha shaqada iyo shaqaalaha oo isagu markii horena ku dhex jiray ayaan u imi, waxaan ku yidhi war shaqada in la joojiyo maaha cabashadu, laakiin waa muhiim. haddii shaqada la joojiyo waxa weeye waa shaqo qarankii ka joogsatay, contract baa la galay. marka macnaheedu waxa weeye maalin walba hadday cidi carqalad geliso de waa mashaakil. cabashada iyadoo shaqadii socota ayaa laga caban karaa, wixii ka dhimana loo hagaajin karaa. aniga shakhsi ahaan maareey ahaan waan la hadlay shaqaalaha, laakiin way ka dhaga adeegeen waanay ka dareereen shaqadii. dhab waxa uu shaqeeyaa waxa shaqada shirkadan weyn ee shafaalnahda dekada dhisaysa waxa shaqada u soo qora 2 shirkadood oo magaalada ah, kuwaasa shaqada u soo qora, kuwaasana lacagta siiya, kuwaasana u dhaxeeya oo shirkadu waxay heshiis la gashay 2 shirkadood. marka hadday shirkadaha ka cabanayaan oo ay de wax ka sheegeen waxa weeye inay maamulka u soo gudbiyaan, in wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay u soo gudbiyaan, laakiin maaha intay afka isa saaraan inay shaqadii ka joojiyaan. annagu arrintaa xoogaal kama nihin. shaqaaluhu waxay qaadanayaan iyo waxay ku heshiinayaan shirkadahaas ayaa u dhaxeeya. hadday cabasho ka qabaanna inay maamul ahaan noo soo gudbiyaan, tallaabaan ku qaadi lahayn weeye. waa Cabdirsaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka Sam News, Berbera.